kulankan oo looga hadlayay sida loo horumarin karo dhaqaalaha magaalada Muqdisho isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir xubno ka socday ganacsatada iyo qaybaha bulshada Abduqaadir Muxudiin Dalxa oo ah wakiilka dawladda hoose xamar u qaabilsan horumarinta dhaqaalaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in kulankan ay ugu talagaleen in warbixintii ay maanta soo bandhigeen ay la tashi kala sameeyaan ganacsatada iyo qaybaha bulshada inaan ku soo bandhigno warbixin ama xog aruurin laga sameeyay magaalada Muqdisho kuna saabsan xaaladaha dhaqaale ee magaalada Muqdisho ama caasimadda taasoo qayb ka ah shaqooyinkii dawladda hoose ay waday ee ku saabsanaa horumarinta dhaqaalaha gudaha caasimadda Muqdisho muddo ayuu soo socday oo laga sheekayn doono oo waagi aan bilaawno shaqadan maanta halkan aan ku soo bandhigi doono cilmi baaristaas ku aadan dhaqaalaha caasimadda Muqdisho sidii uu yahay in halkan ku soo bandhigi doono kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulka iyo maaliyadda mudane Ismaaciil Macali Cabdi Guure oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu wado qorshe lagu nidaaminayo ganacsiga magaalada Muqdisho waxaan u soconaa dawlad wanaagsan inaan u socono waaye oo dadka barno been inaan soo sheegno ma dawladdu ayaga dadkii u adeegta qofkii ummadda dhibaayana oo dawladda magaceeda ku dhibaayana waan ka qabanayna hadii Ilaahay yiraahdo dawladdu waxay u taagan tahay in ganacsiga kobco ruux kasto ganacsi sameeynaayo kobco inta aad sheegteen warbixintana lagu soo bandhigayna way jirtaa waxay ahayd qofka imaanaya ee dibadda ka imaanaya $30,000 wato ama $15,000 gabadha walaashiisa sheegtay inuu intuusan meel gelin oo cid uu la tashtay ay jirto marka loo hago meeshaas ay aad gali kartaa la yiraahdo waxa kale oo jirto aan rabnaa insha Allah taala nagala saacido madashana la kaashano ganacsiga magaalada Muqdisho ka jiro waa isbarbar yaasaya wax kala habeeysan ma jiraan meel waa maqaayad meel waa farmasi meel dharka lagu gadaa meel kobaha waxa lagu gadayaa spare parts ka lagu gadaa marka in la nidaamiyana iyadana hadii Ilaahay yiraahdana waxyaalahan ku tilaabsan doono aan rabnaa inaan madasha kaga faa'iideysano way kulamada noocan la joogteeyo gabagabadii kulanka ayaa waxa la isdhaafsaday dood ku aadan sida loo dhameystiri karo qiimeyntaas uu sameeyay xafiiska dawladda hoose xamar u qaabilsan horumarinta dhaqaalaha waxaana wadayeesha doodaasi dadkii ka qayb galay kulankaasi Maxamed Xasan Cali idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.